waxa ugu qiimo badan aha wiilashii shalay hawdka ku bixinaaye ee ayagoo gaari ay daawac hore ku qaadaan aan lahayn lugaynaaye ee gaari saadu sida ayadoo jirin lugaynaaye ee booyad biyo u wada ayadoo jirin lugaynaaye maanta inay iyo soo noqdaan magaalada beledweyne dhexdeeda ayagu ay difaaci ka sameystaan suurtagal ma noqon kartaa ya hadii aan shalay xurriyad door u dagaalamayeen runtaanay 10 saac ay guryaha galaan suurtagal ma noqon kartaa wadooyinkii saanadu ay u soo marayso oo la rabo maciishada inay u dhacdo oo ganacsigu u furmo oo cariiriga ka baxaan inay dib u xirmaan sababo aad u xun oo aan argagixisada ka iimaanay suurtagal ma noqon kartaa ya waxaan rabnaa dhammaan wixii aan shalay ka dagaalamayeen inaan kaana ogolaan waxaan shalay ka dagaalamayna dawladnimadu inay shaqay weyso waxaan shalay ka dagaalamayna dadkeena inay xurriyad ku noolaa waayaan waxaan shalay ka dagaalamayna nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed inay baad niman ka qaadaan oo ay sidii dad ajnabiya ay yiraahin dalkeena canshuur ku joogaysa taasaan shalay ka dagaalanay tii aan shalay ka dagaalanay annaga dadkeena inay nooga timaad suurtagal ma noqon kartaa walka hiiraane maanta aan joogno waxaan rabnaa isbaarad dambo sharci daraaha jidtaan inaan dhagahayna ku soo dhicin arintaas ma isku raacno waxaan rabnaa bilicdii magaalada iyo quruxdii lagu yiqiinay iyo qiimkii iyo karaamadii lagu yiqiinay si ay u soo laabato maalin dambe inaanu kaanan arkin caasimadii gobolkan oo macaawis iyo qori dambe la dhax lugaynaayo waa foolxumade ya qofka ganacsadaha wuu cabsana gabadha suuqa ka adeegalaha way cabsana kii gaariga lahay wuu cabsana cidda cadawa iyo cidda aan cadawa hayn ma taqaani mid ciidana iyo mid shabaaba ma taqaani wixii oo dhan waxay dhacday qoro wada yaacayo beledka dhex socdo waxaas nidaam ku sugnaa kariya ya nidaam kuma sugnaa kariyo waa aragteen sidaadaba xitaa ciidamada militariga had aragteen magaalooyinka laga madnuuc oo banaanka degan oo magaalada hub la soo gali oo qoraya iyo dariiska la socdo oo xariyo hore inay ku ekaadaan ay tahay ka warrama haddaan intaanu hub iyo soo qaadano maanta oo dhan magaalada aan dhex yaacno waa abni ma la dhihi karaa qofka maal gasha lahayo magaaladan iyo yimaad guryaha ka dhisa lahay oo ganacsiga ka samaysa lahay oo wax walba ka samaysa lahaa ma isku aamini kariya wixii marka warku wuxuu leeyahay magaaladu waaba halaagba lama joogi karo oo carara noloshii dadka marka intay yaade sida agaasimaha hay'adda nabad sugidda sheegay waxa laala iyo waxa xuquuqaad say doonaan haw kala horeeyaano dabcan dad aqli lahatiin dhamaantiin xuquuqaadka marka laga hadlaayo waqti iyo process iyo nidaam ay iska qaada doonaan systemka yaa la idin marsiin doona waxna waa waxyaabaha emergency-ga oo agaasimuhu sheego labada caloolooda halkan hadii unit kale isugu gooyo qadaya quraaci cashay u baahan yihiin xabaday cadawga ku ridi lahaayeen u baahan yihiin kii dhaawac caafimaadkiisa in la daryeelay u baahan yihiin mas'uuliyadaas waxa qaadanaya labada talis ee halkan aan maanta ku taaganaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mas'uuliyadaas qaaday waxa kale procedure-kii iyo nidaamkii loo rabayaan marsiinaynaa waqti gaarayna dhameystirmi doonta waxaan u baahannahay shalay meeshaan dhiigaad ogeedeen ku bixinay dadkaad ogeedeen oo qiimaha badnayna aan ku weynay maanta argagixisadii gafuurada duubneed inay ku harsato waxaan qaada karna miya bari inaan ka shaqo bilownaa rabnaa hadii ilaahay isla bariba inaan ka shaqo bilownaa rabnaa idanka ilaahay waxaan rabnaa anagoo isku duuban kuwa kale meelaha madaxa la galay oo isiri xoogay waa ogahay aniga intaan maadan ahayn xoogaa wax shoodeen waxay isiri warnoo magaalada ku soo dhaxlahabateeno wax fiican ka maadan shaqayna wajigiina meesha hageyna cid saysato male dambi la suma heesto wixii soo dhacay waa soo dhacay way soo dhamaadeen waa la soo afjaray meeshaasay ku hartay maanta wixii ka dambeeya marka waxaan rabnaa qof walba marka buugeedu waa cad yahay wax nadiif ah inay ku qaato meel dambe oo aan mudnayn qorageeda ay hantideedii ka bixisay iyo dhiigeedii qiimaha badnaa ay soo bixisay meel dambe ay aanay mudnayn inayna geynaan rabnaa waxaan rabnaa meesha la mudan yahay inaan geyno waxaan rabnaa halganka inaan aadno waa iska dhaf waxaan rabnaa qorigeenna iyo dhiigeenna iyo dhididkeenna iyo nafteenna meesha mudan inay ku baxda inaan ku bixinaan warkaasu macadya nimankaa halkaa ku jira afafka duuban ee adduunka intiisa kala duwan isaga yimid ama dalkaanayna la leeyihiin ma dadkaanayna la leeyihiin waxaa nagala dhexeey dowladnimada mayna la leeyihiin feere suurtagal ma ahan adduunka dacaladiisa kala duwan dambiilayaashii ka yimiday inay iyo waddankeena nagu qabsadaan hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen horteenna ay baad uga qaadaan annagana aan fiirsanno agaasimaha hay'adda idin sheegana casnimay noo tahay warkaas soo macado shala ayagoo intaan ka xoog badan ka maleeshiya badan caafimaad qaban cidna laga dilin
ayaan waxaad ogeedeen ku dhigna soo ma ahayn maalmihii koobnayd ogeedeen deegaanadan uga saarna soo ma ahayn maanta ay inta ka diciifsayn miyay meesha ku jiri karaan laakiin maxay u baahan tahay isku duubni maxay u baahan tahay discipline maxay u baahan tahay qof walba meesha la geeyo inaanay ka soo noqon soo maaha qof walba meesha la geeyo inaysan ka soo noqon waxaan rabnaa magaalada beledweyne nidaam laga sameeyay ciidamadii qaranka la wareega amniga magaalada waxaa laga samay doonaa checkpointiyo iyo bara control oo magaalada cidda ka baxaysa iyo cidda soo galaysa lagu control haddii kalaysan ahayn waxay noqonaysaa haddaan sidaas la samayn argagixisadan la dagaalamayna inay noogu soo dhex gambatay dadkeena halaagta soo maaha sida horeba mararka qaar u dhacday dadkeena u dhibaateeyeen waxaan rabnaa marka ciidamadaas amniga sugaaya ee booliiska leh ee niisa leh ee milatariga leh waxaan u baahannahay amniga in loo fududeeyo see loogu fududaynaa waxaa loogu fududaynaa checkpointiska iyo meelaha ay joogaan in la ixtiraamo hubka markaad magaalada aadaysid xeraad degan tahay amba furunta laynkaad ku jirtaa meesha taliyaashaada iyo horjoogayaasha ku horjooga ay kugu amran inaad dhigato seed soo gele adoo muwaadin hoo xuraho cid ku taabanaysa aysan jir magaaladaada soo gal u fiirso adiga xataa hadda qoriga markaad magaalada la aado inaad isilaalisaad u baahan tahay sababtoo maxay tahay adaa iscalaamadey maca ustaaday shaatiga garabka shaad magaalada dhaxgal shacabka joogaad ka mid taha soo maaha qorigana xerayso markaad meesha shaqada timaadana qorigaaga qaado warkaas soo ma caddo wadooyinka ayadana sidaasoo kale ciidamo ayaa loo xil saaray oo ilaalinaya amniga wadooyinka si magaaladan ganacsigeedii iyo nidaamkeedii isu socodka ugu deganaado taasna waxaan rabnaa ayadana arqalad inaysan ka soo laaban warkaas soo ma caddo yes aad iyo aad mahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinayaa waqtigiina aad halkan ku fadhiseen in sha allahu tacaala ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa meesha ku xigta ku kulmi doono inay noqon doonto meeshaan meel ka duwan oo ka horeysa ilaahay idankiis oo aan kala baxna argagixisada geedaha ay waabteen inaan ku hergalnaan rabnaa anaga iyo ugu tag godadkana aan ka saarno intaa kaliya ma rabna inaan uga harnee dhallinyarada halkaan fadhisa hamigeennii iyo yoolkeennii waa ogeedeen waxay aheeda inaan iyo gobolkan ka saarno aan gobollada kale Soomaaliyeed ee ay sida dulmiga ay ku dul saareen aan ka dul qaadno saasaan ku ballami jirno Soomaaliyeed markaan meelaha isugu nimaado yoolkeenni miyaan ka tanaasulnay maya waa inaan daba kacnaa aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale madaxda halkaan taagan waa u mahad celinayaa adinkana waa idin mahad celinayaa waxaan rabnaa dib dambe inaanay noogu soo noqon gobolka Hiiraan wixii ku dhacay ee sharaf darrada ku ahaa waxaan rabnaa inaan magacii iyo wanaaggii aan shala samaynay dib inaan u noolaynaan rabnaa warkaas ma cad yahay intaas ma isku raacna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waa ma santi aad iyo aad ma santi Allahu akbar